السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة إثيوبيا أيها سبيشال كل وقت إني بوحين دونتا جرد أما جران إثيوبيان رينيسانس دام أو لقد ذكر نقولنا تلاقو يا إثيوبيا هداسي جديد أو دام كوين أما دام كهون ماركة إثيوبيا. دولة مصر نوحة شيكتي إني دمشق حكتو إن مصر بيوك يستعان. دام كن عصمة جرد أما إثيوبيا دام كيلاي سامين انتهلك يكويرني جيسكا. سومالان iyo wadamada jaarka ah saynu su'aalahan uga jawaabno la soo barnaamijkeena shaxda siyaasadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. 1929 iyo 1959 ayaa dawladda ama isticmaalka Ingiriisku heshiis la galay dawladda Masar oo bilowgii kula galay inuu isagoo siinaya awoodda ama awoodda isticmaalida wabiga Niilka qacanta u galay wadanka Masar. 1960 ayaa dawladda Masar waxay dhistay dam la yiraahdo Aswan Dam kaasoo runtii ka qayb qaatay ama lixaad weyn ka qaatay horumarka dhanka beeraha iyo dhanka warshadaha wadanka Masar. shacabka Itoobiya iyo dawladda Itoobiya oo arkay in la doodsiyo xaqooda isticmaalka wabiga Niilka ahna meesha ugu badan ku yimaado wabiga Niilka ayaa madaxweynihii geeriyooday Meles Zenawi 2009 khubara u xil saaray inay ka war keenan ama ka soo diraasad ka soo bixiyaan sameynta mashruuca damka 2011 bishii afraad ayaa madaxweynihii Meles Zenawi uu dhagax dhigay mashruuca Millennium Dam ayaa markii hore loo bixiyay oo macnaheedu tahay damka qarniga kadibna loo bedelay magaca GERD ama Grand Ethiopian Renaissance Dam. GERD ayaa dhaca deegaanka Benishangul Gumuz oo 15 kilomitir xadka Suudaan iyo Itoobiya dhaca. mashruucan GERD oo dam laga dhalinayo hydroelectric power ama tamarta biyaha ayaa hydroelectric power ka ugu weyn Afrika waana ka toddobaad caalamka ugu weyn. Itoobiya oo wadan 60% ama 70% ku dhawaad dadkeegu aanay helin tamar ku filan oo xaabada dhabar ku soo qaadaan biyo ku filan aan helin ayaa damkani ka caawinay in wadanka Itoobiya uu isku filnaan dhanka tamarta iyo biyaha uu gaadho wadamada jaarkan uu dhoofin karo oo sida South Sudan dawladda Somaliland iyo dawladda Djibouti ay yihiin wadamada ugu dhow ee ka faa'iidi kara mashruucan iyo wadamada kale jaarka sida Kenya iyo Soomaaliya. 10 sano mashruucan GERD socday ayaa dawladda Masar isku dayday inay carqalad ku noqoto wadamo badan oo caalamka ku kicisay Itoobiya si loogu horimaado ama loo joojiyo mashruucan. Masar oo aaminsan in 90% biyaheedu ku tiirsan yihiin wabiga Niilka ayaa waxa ay u arkaan damkan cusub ee Itoobiya furtay inuu carqalad ku keenayo socodka biyaha. damkan GERD ayaa ku fadhiya bad in ka weyn 1600 square kilometer ama baaxadda magaalada London in ka weyn ayuu ku fadhiya damkani. waxaan u soo daynayaa 6450 megawatt taasoo tamar ku filan ama u saamaxaysa wadanka Itoobiya in isku filnaado tamar ahaan una dhoofin karo wadamada jaarka ee ku ag xeeraysan. July 12 ayaa wafdi culus oo ka socda wadanka Masar iyo Somaliland taasoo ilaa imika wada hadalada ay la yeesheen dawladda Somaliland aanay cadeen laakiin ila xogaal sheegeen inay ka codsadeen dawladda Somaliland inay saldhig military siiso. Itoobiya oo saaxiibka ugu dhow Somaliland 30 sano ugu dambeeyay xiriirka Itoobiya iyo Somaliland aad u adkaa intii uu Abiy Ahmed u qabsay wadanka Itoobiya aad moodaa inuu xaqlin dhanka Soomaaliya taasina ay keentay in siyaasadii Hargeysa ay ka soo gaabiso siyaasadda Itoobiya waana sababtay in khubaro badan oo Itoobiyaan iyo baarlamaanka Itoobiya uu dhaleecayn badan u keeno Abiy Ahmed markay ku aadan xiriirka uu leeyahay Soomaaliya iyagoo u arka Soomaaliya inay tahay saaxiib istaraatiiji amniga Itoobiyana laxaad weyn ka ciyaarta. xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxeeya oo runtii xiriir aad u dhow ayaa haddana u muuqda inuu yahay xiriir dhan kaliya ka raran. 30 sano ugu dambeeyay Somaliland khudaarta iyo qaadku waxay ka yimaadeen oo dhaqaale badan kaga baxo waxay ka yimaadeen wadanka Itoobiya kaasoo dhaqaale badan ka faa'iido wadanka Soomaaliya. ganacsatada Somaliland ee alaabta ka soo dejiyay dekada Berbera wajaalana alaabtooda keena markii alaabta doonayeen in Itoobiya galeen si contraband u galiyaan taasina waxa muuqata in ilaa imika alaabta Somaliland ka tagta aanay si xor u gali karin wadanka Itoobiya. xiriirka Somaliland iyo Itoobiya dhanka dhaqaale waxa weeyaan mid dhan kaliya ka raran. kan cusub ee wadanka Soomaaliland la sameeyay wadanka Masar oo ay baraha Twitterka Soomaaliland si cad ugu qeexday inay tahay wadan xor oo u xor xiriiradeeda caalamiga oo ay diyaar u tahay inay heshiisiiso Itoobiya iyo Masar
ayaa noqonaya runtii mid dib u qeexa xiriirka dhaqaale iyo xiriirka siyaasadeed ee Ethiopia iyo Somaliland. Shirkii ugu dambeeyay ee wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda Carabta oo dhacay bishii dhaweyd ayaa wadamada Carabta oo dhan ay taageereen ama ay la safteen wadanka Masar xagga Soomaaliya iyo Djibouti ay ka aamuseen. waana ta keentay in Somaliland ay wadamada Carabta iyo wadanka Masarba ay si degdeg ah ugu yimaadaan oo ay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Masar ay u soo dirtay. Xiriirkan cusub ee Somaliland iyo Masar runtii waxa weeyaan xiriir daarnaan kara ama ku bilaabmay loolan ka dhaxeeya Ethiopia iyo Masar. Somaliland waxa runtii wanaagsan inay ka ciyaarto kubadda dhexe ka noqoto oo aan ka shaqeyso sidii uu heshiisiin karta Addis Ababa iyo Cairo ama Qaahira si ay isku soo dhaweyso labada wadan. waayo mashruucan GERD faa'iido badan ayuu yeelanaa dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Ethiopia oo ah runtii wadan ama deegaan la jaar ah Somaliland, deegaan la walaal ah Somaliland, saameyntiisa ama dhaqaalihiisuna waxay soo gaaraysaa runtii wadanka Somaliland. mashruucan GERD waxa kale uu keenay Somaliland inay hesho tamar aad u jaban ay ka soo waarido wadanka Ethiopia, taasoo sababaysa in magaalada Togwajala ay noqoto industrial park ama xarun warshado laga sameyn karo oo loo iibgeyn karo alaabta Ethiopia iyo wadamada kale jaarkaaba. dhanka kale xiriirkan cusub ee Somaliland iyo wadanka Masar waa in runtii Somaliland si xoojisa, waayo wadanka Masar oo ah wadamada ugu saameynta badan jaamacadda Carabta, taasina waxay u fududeynaysaa Somaliland inay saameyn ku yeelato ama foothold ku yeelato wadamada kale Carabta, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanna u fududeyn karta inay si cad u aqoonsadaan. midda kale dowladda Masar oo ah shacabkeedu uu gaadhay 100 milyan ayaa ah wadanka labaad ama wadanka saddexaad oo ugu soo dhoofinta badan ama ugu soo waaridida badan soo dejinta hilibka caadiga ah. 27 kambani oo hilibka qala oo wadanka Brazil ka soo jeeda ayaa sanadka gudaheega ay dowladda Masar siisay liisanka inay hilib u soo dhoofin karaan wadanka Masar. wadanka Masar oo ah runtii wadan aad u qaata hilibka ayaa ah Soomaaliland laftigeedu inay qayb lixaad la ka qaato u dhoofinta ama ka qayb qaadashada u dhoofinta hilibka wadanka Masar. taasina waxay u baahan tahay in Soomaaliland qayb lixaad leh ama si degdeg ah ay dib ugu dhisto warshadaheega, waliba warshada hilibka qasha oo ah runtii warshad aad u muhiim ah, qayb weyn ka qaadanaysa dhaqaalaha Soomaaliland ayaa ah in laga dhiso magaalada Burco oo ah meesha ugu badan ama silada ugu weyn xoolaha Geeska Afrika. siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland iyo siyaasadda dhaqaalaha ee Somaliland iyo siyaasadda warshadaha ee Somaliland runtii waa inay wada socdaan oo wadanka oo wasaaradda arrimaha dibadda waa inay iibgeysa khayraadka dabiiciga wadankeena si wadamadu ay u maalgashadaan ama aynu ugu iibgeyn karno wadamada jaarka iyo wadamada kaleba xoolaheena ama natural resourcekeena. intaas barnaamijkeenu ku eegyahay. fadlan haddii aad ka heshay like sar, subscribe sar, gambalaalkana sidoo sida fiidiyoyada la midka ah aad u heshid. waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ama ciid al-adha wanaagsan, khayr ku ciida iyo nabad ku ciida. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.